بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وعلى السلام يا بنانتين dadka Soomaaliyeed ee dhageysanaya ayama dhaweyto waxaan halkan idinku soo bandhigay dhibaato qabsatay qoys Soomaaliyeed oo Muslim ah oo markaa maaragtay aad ka arki kartaan filmada horaan soo duubay. Alxamdulillaah rabbil caalamiin, ilaahay arrintii waa uu nagu guuleeyay saddex week dadaal iyo markaa maaragtay halgan socday oo aanu la dirinay ama la dagaalamay waxaan la arkaynin akhirkii maaragtay reerkii alxamdulillaah ilaahay dhibtii uu ka dulqaaday siday u dhammaayeen. waxa weeye hooyada guriga leh oo kale aad bay u xanuunsanaysay, guriga waxyaalihii kala duwanaaye maaragtay lagu aasayay ama la keenayay ayaa markaa maaragtay iyaguna shaki iyo warwar iyo walaac ku abuurayay dadka. kabacdina markii ay xaajadii aad noogu adkaatay waxaan u yeernay sheekh cali oo markaa maaragtay sheekh isaguna dadka gacan ka siiya in ruqyada sharciga ama cilaajka quraanka wax lagu daweeyo oo markaa maaragtay waddan kale nooga yimi, gobol kale nooga yimi. ilaahayna wuu ku guuleeyay subxaanahu watacaala. wixiina waa la gartay oo waxay ahaayeen wax markaa maaragtay cafaariid ay samaynayeen buu ahaa. wixiina waa la soo qabtay, waana caddaadeen waxay ahaayeen, waana laga hadliyey. arrinta muhiimka aan doonaya dadka halkan la wadaaga waxa weeye horta marka ugu horeysa ilaahay horta hala tala saarto subxaanahu watacaala. waxa weeyaan sida qofka jirkiisu haddii ay difaaca jirkiisu uu daciifo uu cudurrada oo dhan ugu nuglaanayo oo hargabka yar xataa uu bukoonayo, saasoo kale haddii qofka tawakulkiisa iyo tala saarashada uu ilaahay tala saaranayaa ay daciifto oo uu markaa harkiisa ka cararo oo wax walba ka baqo, wax laga yaabo inuu u sahlanaado markaa maaragtay balaayooyinka iyo shuruurta kala duwan ee qofka xaasidka ay soo weeraraysa. marka horta ilaahay aad ha laysugu xidho subxaanahu watacaala. mideeda kalena hala nabaadino xidho, hala akhristo adkaarta gelka dambe iyo gelinka hore, salaadaha gadaashooda awraada kala duwan hala akhristo, labada qulaacuudi iyo qulwallaha salaadkasta gadaasheeda hala akhristo. hana la aamino ilaahay keligii inuu maaragtay balaayooyinka inaga xijaabi karo, aan cidina waxba ku yeelahaynin haddaad ilaahay awoodiisu ay kula jirto. waxa weeyaan sheekh cali waa kan hadda garabkayga fadhiya, isaga ayaana alxamdulilah ilaahay uu sabab nooga dhigay markaa maaragtay in dhibaatadii reerka alla ka dulqaado. sheekh cali. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمان الإسلام والله الصومالية المسلمة كل ما برت الإنترنت كان بان دمانتي بالسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرنت أولا محمد كله واجي رنتي وأرنت شفته كل يوم نشوفنا. أرنت إنه يكاد على دونك ولي وقارة عن يوروب أمريكا ودباتوين كتير كمتى دتوا أيسن أكسونين وحبضا وقرصون. أرمان جين كانوا أرما عالم قرصون من أنا مدهر وحنا أكيد وياه، لكن dhibaatooyin kooda la arkayo sidii walaal qoribaynu kusoo geliyey dhibaatooyinka la yimaadeen ku saabsanaa rijiyeynta ama sumeynta cuntooyinka oo ay ka dhacday waddankiiba meelo qaar. marka arrimahan waa arrimo jira weyaan. insha allahu tacaala alxamdulilah ilahay inuu nagu guuleeyey, laakiin dhammaantiin waxaan iskula dardaarmayaa xadhigga ilahay in lagu xirnaado insha allahu tacaala. dhulkan gaaladaynu joognana laga digtoonaado waxyaalo badan ay ka mid tahay salaadaha in dib looga dhaco, xidh qofku had iyo goor sameeyo, markasta uu weyse qabo. waayo dhulkaaynu joogno waa dhul aan ahayn weya dhulka islaamka. marka qof kastaaba inuu digtoonaado, faamili kastaana digtoonaado. caruuraha maxay tahay habeenkii lagu akriyo adkaarta soo aroortay, macawadateynka lagu seexiyo, guryaha lagu shido insha allahu tacaala alboqor ama lagu akriyo biidni illah baari. intaasaan idinla wadaagaya. jazaakum allahu khayra khayra aljazaa. salaamu allahi calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انت صنع على استري يعني دلو داغو وعلى المعسنتين.